waxaan si gaara u adres garanayaa madaxweynaha Jubbaland baan u adres garanayaa madaxweynaha la doortay Cali Masaar ka maanta halka loo fadhiyo madaxweynayaal iyo xildhibaano iyo gudoomiyaasha iyo gudoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka aqalka sare dhammaantiin waan salaamayaa mar labaad salaanka bacdi waxaan aqalka sare oo xoogaa loo wax badan dastuurkana ka warhaya lana socday arrimaha Jubbaland si soke oo xoogaalsi ah ula socday waxaan u nimi oo anigu gaar ahaan igu weyn la socodka aan la socday in codkii halkan kari markii laga hadlaayay intaan doorashada la gaarin heshiiskii laga galay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan oo halkan dowladda xubnaheedii ugu waaweynaa oo ka mid ahaa la taliyaha hadda sirdoonka madaxda oo ah Fahad oo ka mid ahaa iyo prime ministerku ay la gaareen oo heshiiskaas in la fuliyo intaan doorashada la gaarin si aan khilaafba u imaan aad iyo aad uga shaqeeyay baan ka mid ahaa xamar baan wada joognay markii la ballan qaaday in la fulinayo waan muddo sugnay oo ay fuli weynay senatorayaashii reer Puntland wada tashi u aadayno Puntland waxa meesha ka socdana aan la aqbali karin heshiiskii haddii laga baxay waxaa kaloo laga baxay heshiiskii labaad oo ahaa kii aqalka sare oo soo sameeyay xukuumadda la galay oo guddigii madaxda ka ah hadda dhowr senator ay shooyinku ku jiraan oo ku jiro muxuu ahaayay waddanka nabadgelyadiisa oo ku jiro dastuurka dhamaystirkiisa oo ku jiro faragelin la'aanta oo ku jiro sidii waddankan meeshaan looga saari lahaa hore looga wadi lahaa laga gaaray oo dowladda aan isla gaaray fulin la'aanteedii la fulin waayey gardaradana looma dhamma meesha ay ka socon weyday waa ka sheegnay shirtalaad baan kaga sheegnay aeroboorka garoowe markaan ka tagnay annagoo senatoriyaal badan ah arrintaas iyadoo halkaa taalla ayaa doorashadii Jubbaland si dhowaan ula soconnay waxaan la soconnay isku dayga la isku dayaayay in la farageliyo oo la kala qaybiyo dadka reer Jubbaland loo fasaxo inay say rabto u falageliso oo qofka u rabaan kala soo baxaan iyagu taasna waxa weeye wax dastuurka federaalka ka soo horjeedo oo aan la aqbali karin sida aw Xamse oo iga hormaray oo isagu shuruucda soo xafiday oo sheegay qodobka 120aad oo dastuurka federaalka wuxuu sheegayaa maamul kasta oo isagu ku shaqeynayo oo isku doortay oo hore ugu dhameystay dowladnimadiisu ku dhisan tahay habraaciisa iyo dhismihiisa executive-ka ama fulinta qaybta dowladda oo madaxweynaha iyo wasiiradiisa iyo baarlamaanka oo ka horeeya iyo garsoorkiisa isaga oo madax bannaan intaas oo dhan iyadoo la soo dhaafay anaa ku faragelinayo ku deerinayo nin farmaajo oo ninku rabayso kala soo bixi kari waayay meesha khilaaf ka jiraan oo halka waxaan aad uga xumahay nimanka saaxiibadeena oo aniga qaarkood ila soo xiriireen oo iyagu ka baaqsaday inay doorashada ka qayb galaan doorashada gabadha yarta oo la yiraahdo Canab Axmed Daahir ay ka qayb gashay qofka markii la doorto cid kasto madax anagana soo martay Sheekh Shariif bay soo martay waxay soo martay muxuu ahaayay waxay soo martay madaxweynihii kale soo martay Xasan Sheekh Maxamuud Saciid waa sugaysaa isaga laftigiisa kulli waa soo martay qofka adigu isleedahay hubal soonta adigu ku codeynaya hajcalaayo maanta siiyada lagu rogay oo codka siinay waata mid ka mid ah maqlaysan oo lahayn codkayga baan siyaada ka maqlaysay hadda meeshay marayso hadaarkiisa marka waxaa meesha yaalla waxa weeye war adiga maxaa madaxweyne lagu doortay adiga waxaa lagu doortay khudbadahaagi waa laga soo daayaa maalinta doorashada BBC-da iyo Voice America waa laga doodaa inaad u hogaansatid haddii aadan ka bixi karin oo aadan samayn karinna dadka inaad dhinac ka istaagtid high school line dadka laakiin ummaddu maanta waa ka bisishahay maanta waxay ku dhantahay meeshaan la yiraahdo Kismaayo odayaashii hore oo ka soo qayb qaatay dhismaha nidaamka federaalka oo halkaan la yimi oo Puntland wax ka dhisay oo tanaba gacan ku lahaa intuu waa joogaan
waxa maanta furan waxa weeye dalka kuwa nidaamkii loo dejiyey oo dastuuriga ahaa adigaa ilaaliyaha dastuurka ah ee ku ilaali waxaanu u nimi annagoo ku qanacsan doorashada ka dhac ugana tacsiyeynayno kana xunnahay kalana safannahay faragelinta nooc walba leh mid maaliyadeed mid qaybineed mujtamaci reer jubbaland oo aan lagu guulaysan mid shisheeye u kaashasho laysku dayey mid wax walba oo suuro gala in la sameeyo in la inkiro doorasho kama dhicin in lagu inkiro intaas annagoo ka xun baan u nimi way dhici kadhaa ama waabaynu ku dhex jidhaaba in layninka dhex kalluumaysto dhex kalluumaysigaasu haddeer maamuladii xataa lagu guulaystay ku jidhaa puntland mararka qaarkood waxaan ka maqlaa hadalla aan munaasib ahayn oo mujtamaca qaybihiisa waxgaradka aan ahayn oo hoose iyo waxbaa meelaha loo tuurtuuray qaylqaylnaya waa ka maqlaa laakiin hal baa inii sheegaya nidaamkan federaalka ah laakiin ficilka socdaa waa burburinna dadkaanu waa soo dhaafay horuu u burburay nidaamkii uu ka burburayna dib ugu noqon maayo waxaa laga guddoomiyey 1991 aadan cabdulle cusmaan iyo sheekh mukhtaar maxamed iyo cabdisaaq inaan soomaaliya dib ugu noqon doonin nidaamkii kaligitaliska ahaa ama unitariga ah oo weligii jiray nidaamka federaalka aan qaadanay faa'iidooyinka dalka uu leeyahay waxa weeye ani waqtiga iska dheeraystaa waqtiga sidiisaba waa wax qaybsi xukunka dawladda wuxuuna ka bilaabmaa in awood ilaalinta dalka iyo isku haynta ah la siiyo dawladda dhexe oo nidaamka nimada Soomaaliya oo dalkana lagu hayo wixii ka soo waa dhacaa markii dabayluhu qabsadaan maamulka federaalka ah waa maamul jirid weyn oo dhulka ku aasan dawladaha adduunkana boqolkiiba 40 oo dawladaha ugu horumarsan ay ka mid yihiin ayaa qaatay Mareykanka ugu horeeya 1776 buu qaatay waxaa ka mid ah dawladaha kale waaweyn oo qaatay Kenya baa evolution ugu jidhaa hadda federationkii uu dhameystiran yahay wax yar ka dhiman yihiin magacaabadii states inay ku magacaabaan kaliya contain intay cantonate intay hadda sheegayeen tii rasmiga ah ee state suurkana ay mas'uul ka tahay dawladda dhexe iyo wixii wax lagu qaybsay iyo wixii muxuu ahaayay markaas la isku ogaayay sidii ahaayeen loo fuliyo haddii maanta dalka wax ka xumaadaan mas'uul waxa ka ah madaxda u sareysa dalka lama wadaago waxaan soo jeedinayaa siga adiga ha yimaado hal heshiyo waa ka sugayna intaan meesha ka tigin hadday ka imaan weydo